Dear Somalia, maanta as I watch TV-ga oo hilla iga socoto ilmahani saud dhimanayaan ninkan waxaa ka walwashin qabiil la weligiin wax loo joogin qabiil waxaa loogu talagalay inta laisku garta la inaa inta isku dilno because kulligeena hal dad leedahay hal luuqad iyo hal diin seesaan iskugu geli karnaa seesaan iskugu nacabna the only wadan oo saan isku nacab leenahay waayo dadkeena bahluulyaal aqli ma qabno xawayaan socdo le macnahay haddaa jaahil xataa haddaa tahay dadkaada iyo dhulkaada jecel inta u haysid waayo maantana fiiriya dhulkeena iyo dadkeena gaajo anakana ma caawin karno inta wadanyaalkalana caawiyaan sad waayo waxaasoo kale kuwa wadanka ka maqana soomaaliya way hilmaameen ruul haddaan sheegayo soomaaliya waa la hilmaamay waay anaka ma qabni miya garti oo wadankeena ku help gareeno garti ma qabno TV-ga ilmo yaryariis say u dhimanayaan kulligood dhafalay ka saawada hare wadankeena ma caawin karno waay see saar iskuu fiirsan kartiin ha sad waay waxaanoo kale waxaa luu fiirsan karnaa inkaaraa wada qabtiin inkaar wadankeena inkaar because ilaahay ku jeestaysan dhulkiina ma ilaalinaysiin dadkeena gaajo u dhinteen mana lis caawin karo maanta because kulligiin waa isnacabtiin look at Moroccan fiiriya they went through racism they're not the same people black and white ay kala yihiin and now look today they're over it wadankoodana they didn't ruin their country they're simply over it and meeqa dadoo kale nooca hadda wadankan degan oo kulligood lis wada fahmaya xataa hadday isnacab yihiin law baa jirto where you have to qofka kale as much hatred as you have for the other person you must not reveal it for the sake of the law for the sake of trying to keep their country in peace why can ours be like that why keena saas oo hayn karin anakoo isku dad ah oo hal luuqada haysano oo hal diin haysano nacbitaankan maxaa waaye laisku necab yahay ani qabiil ma aqaani weligeyna ma aqoon dooni ilmahaydana weligay qabiil ma baraayo because ani soomaali ila yihiin kal noocay lama ilaahay nooc kastira baan ha noqdaan soomaali isku sila u jecla weligay wadankaydan ahaaminisana arkin because of dagaalkiina joojiya waxaa wadiin ilaahay ka cabsada dhulkiina sidiisa ku saaceliya isaan ma ku jiri kartiin isaana ma lagu fiirsan karo en soomaalida wadamaha kala jiraan please caawiya dadkiina anina waxaa samayn karo waa sameynaa caawiya isjeclaada united we stand divided we fall people and we are divided that's why we have fallen and today we can't even help our own kind who's in starvation isn't that a shame kulligiina all of you should be ashamed of this I can't bear to watch this anymore it's ridiculous it's saddening it's heartbreaking today I have to see my own kind literally starving to death while I'm here alive and well. And this goes out to the rest of the Somalis out there. Those who are not in Somalia, why can't you teach your people? Why can't you educate them? All of those who are educated, go back, educate them. Because right now all they have is ignorance. And that is why our country is not going back to a peaceful state of mind. Because there's ignorance going on. Those who are educated
help educate your people. Those who know the laws, help teach them laws where the citizens can abide by, where they cannot harm each other. All we need our country to be is, it needs to have a government. And if you guys cannot get along, and every qabil is mafahmi karan, all you need is for each state to have a governor. And kullugood hal president ha ku vote gareeyaan, because saan ma lagu jiri karo. aakhirana ilaahay ma dadka oo dagaal iyo balaa iyo buuq oo ku bilaa wadankan aakhira ilaahay wuu saa istaajinaa yawmul aakhira. Because you know why? People my age never got to experience what it feels like to be in their own country. Why? Because you guys fought over Qabil, tribe? What kind of patheticness is that? Qabil inta isku dagashin, when we are the same kind. That's literally unheard of. For what? For 20-something years? You guys should all be ashamed. Ashamed for letting this go on as long as it did. Ilaahigina ka cabsada, hal ku noqda Soomaaliya. Hal ku noqda. Because saan talo ma aha Soomaaliya.